ya kukanyagana, haina haja ya kusukumana. Kwa hivyo tunawaomba sana muwasikilize afisa usalama na maelekezo ambayo watawapatia, na vile vile ziara ya rais katika constituency ya Kamukunji kwa hivi sasa imeanzia kwenye Technical College ambayo ni vocational college ambayo ameizindua leo, na nafikiri hiyo Technical College kuna vijana wengi sana hapa ambao wamehitimu mafunzo ya sekondari ambao inshallah watafaidika na hiyo college. Na baada ya hapo rais akifika hapa atatoa hotuba, ataongea na wananchi wake, na hatimaye ataelekea mpaka maeneo ya Shauri Moyo ambako atazindua pia mradi wa nyumba za bei nafuu. waxagaa Soomaali haddii aan maaragtay ku fasiro socdaalka madaxweynaha maanta wuxuu ka bilaabmay uu haatan ka socdaa kuliyad oo maaragtay uu maanta si rasmi ahaan u furay. kuliyadaas farsamada ayaa lagu bartaa. kuliyadana kolley shalay waxaan xasuustaa mudanaha Kamukunji ka soo galo Yusuf Hassan mar uu ka khudbaynayay safaaradda Soomaaliya ayaa wuxuu yiri kuliyadaas waxay qaadi kartaa 500 oo arday, laakiin waxaad moodaa hadalkiisa wuxuu ka xumaa hal dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo college-kaas ku jiro malaha. marka walaalayaal dhalinta hadeertan maaragtay soo kacayo oo shabaabka ah oo secondary school ka soo dhameeyay, bal kuliyadaasi halaga wardoono, farsamadaasi halaga wardoono, waxaa laga yaabaa in ay ku anfici doonto. sidoo kale madaxweynaha markuu halkaasi ka soo dhamaado anaku noo imaan doona insha Allahna socdaalkiisa ayaa wuxuu ku soo gunaanadi doonaa xaafadda Shauri Moyo. halkaasi uu xariga u jari doono barnaamij ama project ku saabsan guryaha beeca jaban oo afka qalaadka loogu yaqaano affordable housing. marka dabcan kolley waxaad moodaa hadeertan jawiga siyaasadda dalka inuu maaragtay sii degayo. marka waxaanu filaynaa